nidaam maanta jira ku fashilmay dawladnimadii haddaan lagu soo dabaalin xayndaabka dawladnimadana ay khatar ugu jirto burbur baahsan oo soo gaara dhaxalkii awoowayaasheen meel dheer laga raadiyo magaca Soomaaliyeed haddaba badbaadinta dimuqraadiyadda iyo dawladniska Soomaaliya waa waajib saaran qof kasta oo Soomaali ah maanta after marxaladda si daawo karo dawladda Soomaaliyeed ku jiro waxa looga baahan yahay inuu isgarab taago xaqa iyo cadaaladda u hiiliyo waddankiisa gacanta ka qabto gafanayaasha dawladnimada ka dhigtay marna yaa la yeelin in masiirka 20 milyan oo Soomaaliya afar qof ku ciyaaraan marna yaa la yeelin la kala dhantaalo marna yaa la yeelin wareejinta khayraadka ummadda Soomaaliyeed marna yaa la yeelin qabkii ummadda Soomaaliyeed hoos loo dhigo marna yaa la yeelin dawladnimadu noqoto ganacsado marna yaa la yeelin in Soomaaliya la kala irdheeyo marna yaa la yeelin in Soomaaliya duruufahan ay Soomaaliya waa daashay dadkeedii waa daaleen adduunkiina wuu inaga daalay ka fadhiyaan la timaadaan qorshe oo wada jira laguna badbaadiyo dawladniska Soomaaliyeed maanta ma jirto maalin Soomaaliya uga baahi badan tahay si dheer leh qorshe cad soo bandhigi kara fiirnaxay aan ku naaxin samata bixin kara dalka iyo diinta iyo dadka wada jirka xoojin kara xuduudaha sugi kara cadowga u bedheeri kara ka reeban eexiyo qabiil ka caagan musuq kuna suntan daacadnimo iyo dal jacayl Soomaaliya weedin ka dursugaysa waxa fashaan baa falan hadallo qurxoon iyo isu imaatin aan waxba ka hooseynin ma noqon doonaan kuwa qarka aan saaranahay inaga badbaadin kara man la sugayo haseexan internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah